madaxweyne ku-xigeenka bangiga adduunka xaafis qamiim oo maanta muqdisho safar ku yimid ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kusoo dhaweeyey wasiirka maaliyadda soomaaliya isagoo dalka u yimid in dowladda soomaaliya ku bogaadiyo hanaanka maamul maaliyadeed iyo horumarka ay ka sameysay barnaamijka geedi socodka daynacfinta soomaaliya iyo xoojinta barnaamijyada bangiga adduunka uu ka fuliyo soomaaliya iyadoo isla maanta magaalada muqdisho ka furtay xafiis. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay madaxweyne ku-xigeenka bangiga adduunka waxayna ka wada hadleen dardargelinta qorshaha daynacfinta dalka barta go-aanka gaaridda bisha februari ee sanadka 2020 iyo shaqo abuurka dhalinyarada soomaaliyeed. xaafis qamiim ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in booqashadiisa ay ka turjumayso sida bangiga adduunka ay uga go-an tahay taageerada soomaaliya, shaqada wanaagsan ee dowladda soomaaliya ka qabatay iyo hagaajinta lagu sameeyey dhaqaalaha dalka. waxa uuna madaxda dowladda federaalka soomaaliya uga mahad celiyey hogaankooda wanaagsan. shir gaara oo ay yeesheen bangiga adduunka ee dowladda federaalka soomaaliya ayuu shir gudoomiyey ra-iisul wasaare khayre ka oo lagu falaqeeyay dardargelinta tallaabooyinka soomaaliya u rumay kara hiigsigeeda in deynta laga cafiyo iyo diyaargarowga wadooyinka soomaaliya ee u furayso marka deynta laga cafiyo. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa bangiga adduunka uga mahad celiyey taageerada ay siiyaan shacabka iyo dowladda soomaaliyeed. waxa uuna cadeeyey inay sii wadayaan dadaalada lagu gaarayo barta deynta looga cafinayo soomaaliya ee bisha februari ee sanadka 2020. wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa xusay in dowladda soomaaliya ku faraxsan tahay in madaxweyne ku-xigeenka bangiga adduunka uu yimaado magaalada muqdisho, taasina ay cadaynayso shaqadii wanaagsaneed ay qabatay dowladda soomaaliya. waxay tilmaamaysaa runtii in madaxweyne ku-xigeenka afrika qaabilsan inuu halkan inoogu yimaado maanta isagoo socda oo tiimkiisa la socda. waxay tilmaamaysaa inaan tallaabooyin waaweyn soo qaadnay haddaan Soomaali nahay, inaan waxyaalihii laynooga baahnaa isagaa sheegi doonay aan buujinnay bay tilmaamaysaa. waxay tilmaamaysaa inuu laydh ka muuqdo meeshaan ku soconno ayay tilmaamaysaa. wuxuu nooga warramay maanta shirkii prime ministerku jeergaraynaya nooga warramay sidaa iyaga ula eg tahay World Bank bisha aan sugayno ee bisha labaad sidaa ula eg tahay iyo nooga warramay in jidka aan soo marnay jid toosan ahaa buu nooga warramay. marka la gaadho bisha labaad waxyaalaha soo socda ayuu nooga warramay. wuxuu noo sheegay sida aan ku soconno haddaan ku soconno sanadka soo socda haddii Ilaahay dhaahdo inaan ka heli doono lacag ka badan 700 milyan oo 3 sano oo ah mashaariicda nationalka gudaha iyo intaa in ka badan oo ah mashaariicda Horn of Africa aan la wadaagno geeska Afrika la wadaagno wadannada kale. madaxweyne ku-xigeenka bangiga adduunka ayaa xusay in wada shaqaynta iyo taageerada kala duwan ee bangiga adduunka uu siiyo Soomaaliya iyo in bangiga adduunka uu maalgelin ku sameeyo hay'adaha kala duwan ee dowladda Soomaaliya. waxa xusay inay garab taagan yihiin isla markaana ay bogaadinayaan tallaabooyinka wanaagsan ay u qaadeen in deynta laga cafiyo. farxad bay tahay inaan maanta halkaan joogo. waxaan dareensanahay in booqashadayda iyo imaashaheenna maanta ee caasimadda muqdisho ay ka turjumayso sida bangiga adduunka uga go-an tahay arrimaha Soomaaliya. waxay kaloo ka turjumaysaa shaqada heerka sare ah ee adiga iyo dowladdaada aad samaynaysaan, horumarka weyn ee laga gaaray dhaqaalaha Soomaaliya ee aan markhaatiga ka nahay. waxaana horumaradan suurtageliyey hogaankaaga, hogaanka ra-iisul wasaaraha iyo kan madaxweynaha. waxay sidoo kale hawshaan noo saamaxday in bilihii iyo sanadihii tegay aan idinka taageerno dhowr waxyaabood oo kala gedisan sida tayeenta aadanaha, iskuduhridka iyo abaabulka dakhliga, biyaha, beeraha iyo xoolaha. balse hadda aad ka hadlayso bisha Febraayo go-aanka lagu cafinayo deynta, waxaan hadda awood u yeelan doonaa inaan qabanno howlo intaas ka baaxad weyn. xaqiiqdii yoolkeenna waa inaan maalgashi kale oo badan
ka sameyno Soomaaliya, inaan abuurno shaqooyin badan, inaan fursado badan u abuurno da'yarta Soomaaliyeed, sida miraha dadaaladeenna iyo miraha shaqadiinnii adkeed loo goosto loona dareemo. bixinta maalgelinta bangiga adduunka ma noqon doonto mid ku kooban dowladda. waa sii wadi doonaa samaynta arrintaasi, waa sii laba jibaari doonaa maalgelinta aan siino dowladda 2 ama 3 laab. hase ahaatee waxaa kaloo taageeri doonaa maalgashiga gaarka loo leeyahay innaga oo u marayna hay-adaha aan shaqo wadaagta nahay ee qaabilsan caawinta ganacsiga gaarka loo leeyahay ee IFC. Soomaaliya iyo Soomaalidu waa dad caan ku ah hal-abuurka ganacsiga, waxayna caan ku yihiin inay yihiin ganacsato waaweyn. sidaas awgeed waxaan u baahannahay inaan ka faa'iidaysano tamartan dhalinyarada Soomaaliyeed iyo sida Soomaalida qurbo joogta ah si aan dib u dhisno Soomaaliyada cusub, u taageerno kobaca annaga oo maalgelinayna dhaqaalaha dijitaalka ah sida ICT-ga, tamarta iyo waxyaalaha kale ee kala duwan. sidaa daraaddeed sharaf ayay ii tahay una tahay saaxiibada aan shaqo wadaagta nahay inaan idinla shaqayno idinka iyo dowladdiinnaba. waxaan quudaraynaynaa inaan sii wadno hawshan iyo inaan annaga oo wada jirna gaarno natiijo wax ku ool ah. madaxweyne ku-xigeenka bangiga adduunka xaafis khaniim ayaa shir wadajir ah waxa uu la qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xasan Cali Khayre. shirka oo ka qabsamay xafiiska madaxweynaha ayaa waxaa goobjoog ka ah xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliya iyo mas'uuliyiin ka tirsan bangiga adduunka. madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo bogaadiyay dadaalada xukuumadda ee ku aadan deyn cafinta iyo horumarka hanaanka maaliyadeed ayaa bangiga adduunka uga mahad celiyay taageerada joogtada ah ee uu la garab taagan yahay shacabka iyo dowladda Soomaaliya. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.